muuqaalada wada raaxaysiina masuulay oo aan ka hayo dadku badan ama is arag laakiin ballan waxaan kaga qaaday inay 100 kun oo qof oo Soomaali inay arkaan أنا أول وأسيكي هرت نمبر 1 سقلبي أو جعل أجر أبل sidaad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtay codadka sirsirta ah maqlay nin sheegay inuu mas'uul jeclaa mas'uul xiriirka ugu baxday maadaama CK ay sheegtay inay jeceshahay codad sirsir ay muuqaalo cusub ayaan kula wadaagi doonaa fadlan muuqaalka like garay si share garay commentiga wixii fikrad ka qabtidna noola wadaag soo dhawow daawada nagu soo biir meeshaana ka mid noqo asxaabteena muuqaalo sirsir ay codad sirsir ay nin sheegay inuu mas'uul xiriirka dhexay aad u jeclaa mas'uul maadaama ugu booday mas'uul oo live TikTok dhankeeda soo gashay adeerkeeda Daara Ali soo qabatay ee bartay ninka xiriirka oo kala dhaxay ee aad ugu waalatay oo CK la leeyahay oo dalkaasi Canada ay ku wada kulmeen maadaama ay sheegtay mar dhow inay is aroos rabaan nin sheegay in oo mas'uul jeclaa laakiin aan baraha bulshada caan ka ahayn oo xiriir oo iskaala dhaxay intaysan ee dalkaasi Canada ay tagin maadaama ninkaasi oo aad u carooday iyo muuqaalo sirsir ah iyo xogo oo sir ah ayaga dhexdooda maadaama laba qof oo lamaane ee hore u ahaayeen uu sheegay in uu soo qarxin doono maadaama uu jecel yahay ka tagtay ee qiyaantay maadaama ay baraha bulshada dhexdeeda ay ku sheegtay dhanka live-ka oo TikTok-ga inay CK jecesha eeba u waalan jirtay mar walbana baraha bulshada ay ka daawan jirtay markay dhanka oo qosolkana ee ratan dhankiisa ay aadi jirtay maadaama hadda oo ninkaasi aad u carooday uuna sheegay in uu soo qarxin doono codadkiisa oo baraha bulshada iyo muuqaalkiisa oo la keen sida aad shaashada ka arki karto waa ninkaasi odaga ah oo sheegay maadaama xanaaq uu xanaaqay darteed oo muuqaalkaas ugu soo qarxinayo xanaaqaasina jacayl uu u qabay dartiisa ee ayadan qiyaantay asigana uunan u aabayeelin qiyaamadaasiita uu ka aarsan doono ayuu sheegay dhankiisana fikradaasi ayaa ka soo dhaadhacday dhanka kaleeto mas'uul oo sheegtay in ayadaba u waalatay dhankaas CK dhankiisana hadda u badatay maadaama baraha bulshada dhankeeda hadda TikTok lagu arkayo muuqaalo badan oo dhanka CK ee la soo duubeyso maadaama ay aad u jeceshahay CK eena u waalan tahay dartiisa jacaylka ay u qabtan uu xad dhaaf yahay eeba ka maarmi karin asigana ay jeceshahay ayadan dhankeeda muuqaalada TikTok baraha bulshada baryaan la wada ayadii CK uu yahay maadaama xalay ee live iyo dhankaasi TikTok ka soo gashay adeerkeedan ee soo qabatay dhankaasi Daara Ali uuna sheegay in mas'uul ay jeceshahay ee ayada dhankeeda ka cadeysay CK oo afkiisa qirtay asigaba inuu waalan yahay oo jacayl xad dhaaf u qabo baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay arinteedu ay wajh saddexaad yeelatay maadaama qof xiriir oo kala dhaxeyn uu xanaaqay oo baraha bulshada uu leeyahay waa ku fadeexeen doona muuqaalo ayaa ka soo qeexay xodaas iyo xodas sir ah muuqaaladu ayaa kula wadaagi doona soo dhawow daawade أنا أول وأسيكي هرت نمبر 1 سقلبي أو جعل أجر أبل يعني after that مركي وأنا أقرأ إسكفاهمي كرت أنا كنت أجر قصر مركي أروح أسأل سورة سجري muuqaalada wada raaxaysiina masuulay oo aan ka hayo dadku badan ama is arag laakiin ballan waxaan kaga qaaday inay 100 kun oo qof oo Soomaali inay arkaan waayo aniga adu ila socon waxa ay qaban baad igu sameeyay masuulay oo ah inaad